isu soo baxan ay soo qaban qaabiyeen xubno ka tirsan ururada haweenka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug iyo helada dhalinyarada Soomaaliyeed oo si sharci darro ah sida ay sheegeen muddo ka badan 10 sano ugu xiran dalka Cumaan ayaa maanta lagu qabtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Dibadbaxayaasha ayaana ugu horreyn uga mahad celiyay dawladda federaalka Soomaaliya waxqabadka muuqda ay samaysay muddadii ay shaqeynaysay iyagoo dhanka kalena ka codsaday madaxda dalku inay xoogga saaraan soo deynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee weli ku xiran dalalka shisheeye. dhammaan waxaan salaamayaa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Khayre walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa dhammaan saan u nahay ummadda Soomaaliyeed sidaan u nahay hooyooyinka Soomaaliyeed ay ka dhibaataysan yihiin wiilashoodii walaalahood odayaashoodii waxaan idinka codsanaynaa inay noo soo siideysaan dhalinyarada ku xiran Cumaan aniga waxa ku kamid ah walaalkay أحمد قادر عثمان باكمل walaalkay hooyaday macaan ii dhashay walaalayaal waxa idinka codsanayaa midana madaxweyne inaa noo soo siideysaan idinka madaxda wadanka walaalkay macaan inaa noo soo siideysaan ilaahay idinku dhaariyay waxaan idinka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaa soo siideysaan waxaan idinka rabnaa wiilasha meesha ku baqtiyay oo ku xirxiran yihiin silsilado oo 10 sano dadkood iyo gurigooda iyo hooyadood iyo aabahood iyo naagahood ka maqan inay noo soo deysaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare dawladda iyadii tihiin madaxweynaha iyagii baa tihiin waxaan ka codsanaynaa oo idinka baryaynaa oo la ooleynaa ilmaha iyagii iyo wiilashiyadii iyo nimanka iyaga kulli waa xiran yihiin walaalayaal dadka halkaa ku dhiban noo soo deeya ilaahay khayr iyo nabad baan idinka baryaynaa inaa weligii jirtaan oo joogtaan baa ilaahay idinka baryaynaa inaad wax kasta noo qabataan baan ilaahay idinka baryaynaa walaalayaal wadinku waxaan ka codsanaynaa noo soo deeya wiilasha meesha ku dhiban oo ku caqday oo silsiladaha ku xiran yihiin oo meesha lagu iloobay oo dambe ay geystaan la arag badooda ka lumaysanayay oo badooda lagu qabtay dhexdeedii walaalayaal noo soo deeya walaalayaal noo soo deeya wadin ducaynaynaa noo gurmada oo noo istaaga ilaahbaa gurmad kale ilaahbaa gurmadka bixiya noo istaaga oo noo gurmada waan ooyaynaa waan noo jeedaan meeshaan roobanahay bismillaahi raxmaani raxiim awalan waxaa mahad ilaahay subxaana qaadir raxmaanka oo soo kaaya meeshaan asagana u mahad celinayna waxaa dadkan u soo banaan bixeen oo meeshaan loo taagan yahay oo qorraxda u dhoobanahay waa dhalintii Soomaaliyeed oo dayacan 43 wiil baa ku xiran oo waxay galabsadeen la arag oo waxay sameeyeen la arag oo badoodaas madow ka kalumaysanayay ilmihii ay u kalumaysanayeen iyo xaasaskii ay qabeen waa dayacan yihiin asay ma qaadin oo ma dhibana qabri ma gelin ninna ma haystaan waa asay lamood ilmihii banaanka yaalin waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka dawladda dhexe maxaabiistii hore waa la sii daayay waxaan u aragnaa in la ilaaway wiilasha Cumaan ku xiran ee Soomaaliyeed ee xaniman ee dambilaanta u xiran waxaan u maleynayaa xukuumadda 10 bilood baa u hadhay 10 bilood shaqada ay qabanayso koowaad ka dhigta maxaabiista Cumaan waxaan codsanaynaa maxaabiista Cumaan baa ka codsanaynaa Farmaajo khayran soo daayaan calaykum dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto gaar ahaan madaxweyne Farmaajo Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha iyaga Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre annagoo gabdhaha Soomaaliyeed oo mudug gobolka mudug joogna waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha madaxooda Allah raajiyo waxaanu ka codsanaynaa maxaabiista Soomaaliyeed meel kasta ay ku xiran tahayba in loo soo daayo khaasatan waxaan kala codsanaynaa Cumaan wiilasha ku xiran dhabuur rafaasan oo dhabuur dhibaataysan oo dadkoodii ka murugsan yahay annagoo eelkoodii ka murugsanahay in loo soo daayo baan madaxweynaha ka codsanaynaa iyo ra'iisul wasaaraha madaxweyne wax noo qabta madaxweyne aan ku raysano madaxweyne aan ku rayrayno waxa noogu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha noolaado waxaan ka codsanaynaa madaxdayada sharafta leh wiilashaas dhibaataysan madaxweynaha iyo madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha iyaga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed inay noo soo daayaan wiilasha Cumaan nooga xiran oo dhibaataysan oo xabsiga ku dayacan oo caruurtoodu dayacan tahay hooyooyinkood murugtu dhamayso dhiikarka iyo sonkorta barbaranka iyo murugta ay ku dhacay ay ku ruday iyo caruurtoodii oo baahan naagahoodii oo daranyaysan in loo istaago madaxweynuhu sidii kuwii hore noogu soo daayay oo Hindiya iyo xabsi Itoobiya iyo xabsiyada badan uu nooga soo daayay madaxiisa Allah raajiyo inuu kuwana noogu soo daayo baan ka codsanaynaa
إلهي سبحانه وتعالى وإنها نسهل أرنتاس الله قرب قلو إلهي بوحول بفضلين كرا أسجنا الله وفضل يم مدحوينها يجان لنا هاي رئيس الوزراء فرماج مدحوينها فرماج رئيس الوزراء حس على خير وحن كعصنا هي ويلش الصومالية وقار دنتي وقار نوليا دري الحلا حرحرة كتير ضيسا وعن استغيار كلهين وقار كوبا ماشي وعن كعصنا مدحوينها رئيس الوزراء الناس الداية إن فيريان ضد كلمة يهستا إن فيريان ظروف ضد كم مغرس إن فيريان مروي ضد كوطال مدحوينها تسقع عصنا مدحوين عبيس هداي أساكتر وقم هذا عنا إلهي ما أذكره إنه كواسنا الناس ضد بدي بعطيسا أنت زم مدحوينها كعصنا إلهي بوحي اللي بري الله جاهلا أساقنا ومدحويننا وبرينا أساق كتر مدحوينا محبيس سوداي أساق كتر وأنا وقم هذا علينا مدحوينا أنت عقبتي وحن كلنا أنت أصلا كصادر مدحوينا أنت عقبتي وحن كلنا أنت أصلا كصادر مدحوينا أنت عقبتي وحن كلنا أنت أصلا كصادر الماء أقول لما ولا هتشوق الماء بدارك بتشوق المسك أقول طرف اسم بتشوق بعد لودي بتشوق هو يوتوك ستشوق مدحوينا وحن كعصرنا أنت مدحوينا وحن كعصرنا إنه يستك مدحوينا وحن كعصرنا إنه يستك مدحوينا نقصيها وأنا كسر ويننا وأنا كسر ويننا وأنا كسر ويننا مدحوينا معترالين مدحوينا معترالين رئيس معترالين مدحوينا معترالين ورا الله كديو ورا الله كديو ورا الله كديو ورا الله كديو الرحمن الرحيم مدن مدحوينا وين السلام يا دمانتين مدحوينها رئيس الوزراء دمان مسلمين تودون وين السلام يا ilmahayga aabahooda ayaa xiran dhamaan walaalahay oo dhan baa xiran eheliyadoo dhan waxaan ka codsanayaa dhamaan dadka dhan inay soo daayaan nimanka rafaadsan ilmahaas agoonlamoodaan haystaa 9 sanaan haystaa cid macnaha waxa weeyaan aabahooda hayn oo ilmaha aan ma sheegi karin mudane madaxweyne waxaan ka codsanayaa soo daa nimanka xiran waxaan ka hadla ma aqaan waxaan salaamayaa salaanta muslimiinta dhammaan muslimiintu meel ay joogaan waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa wiilasha halkaas ku xiran oo intaas oo sano xiran oo dhibaataysan in naloo soo daayo oo si degdeg ah naloo ku soo daayo oo dhibaataysan wiilasha noo soo daayo madaxweynaha ka codsanaya ra'iisul wasaaraha ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed waxaan ka sanay dawladda federaalka dhammaan baan ka codsanayaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wiilasha noo soo daa halka ku xun oo ku dhibaataysan oo ku baqtay oo ku dhibaataysan oo iska xidhan oo iska yaala baan ka codsanaynaa inaad noo soo daysid wiilasha inaad noo soo daysid waana in salaamayaa noolaw madaxweyne iyo ra'iisul wasaare noolaada insha Allah waan salaamayaa salaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh si degdeg ah inaan sugaynaa أتذكر لقد قيرة موجية. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto salaan ka bacdi waxaan salaamayaa madaxweynaha farmaajo iyo khayr wasaaraha waxa weeye wax badan mudaharaadkan kii ka soo horeeyay oo kii saddexaad oo hadda anigna weeye kuwii ka horeeyay wax badan bay qabteen laakiin iska daba raacin ayaa u dhiman waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inta u hadhay oo wax weeye hawl bay qabteen oo ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waan ognahay waxay qabteen inay u tagaan waan ognahay inay wax macnaha ay dad u direen waan madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanaynaa iyo khayraba inay siday u hawlgalaan hawsha ugu jiraan u dhameystiraanin annagana kurbadan haysa ay nooga dulqaadeenin walaalaha iyo Soomaaliyeed oo meeshaas wax way ku dhibaataysan oo wiilasheedii nimankayagii ehelkayagii waxa weeye dad baan ilmaan aabayaashoodu wali arag intaas oo sano 10 sano marka waxa weeye waxaan ka codsanaynaa madaxweyne farmaajo ha noolaado غير هنولاado doorashada damana ha ku soo baxo tasaxaana ha ku soo baxo waliga hanoolaado waa ku garab taagan madaxweyne waa ku garab taaganahay madaxweyne waa ku garab taaganahay ra'iisul wasaare ku garab taaganahay shacabkiina baanu nahay meel kasta aanu joogno waxaanu nahay dadkiina waxaanu nahay هلا مسالس هلا بلاو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة إسلام كبا سومالي دمانكو سلامية waxaan doonayaa wiilasha ku xiran Cumaan oo dhibaataysan oo rafaadsan oo waxa weeye in badan ku rafaadsanaa meesha madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa iyo ra'iisul wasaaraha in badan baan u codanay in badan baan waa la hadalay haddana waxaan mar saddexaad iyo mar afraad ba ka codsanaynaa inuu noo soo daayo
wiilasha halkaa ku xiran oo ku dhibaataysan mar labaad iyo mar saddexaad ba codsi baan u dirsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa uu ku mahadsan yahay